Dadka wanaagsan waa sida shumaca oo kale, waxay gubaan u dhibaan naftooda si ay iftiin u siiyaan dadka kale. Dadka xiqdiga iyo calool-xumada badan u noqo sida geedka timirta ah ee marka dhagax lagu tuuraba ay soo dhacdo rubac timir ah. Dadka 80% way iska aamusaan xataa xilliga ay rabaan in ay wax yidhaahdaan si ay uga fogaadaan muranka qof ay danaynayaan. Dadku cid wax u bilowda ayay laayihiin ee bilow adigu cid kula dhammaysa waayi maysidee. Dadku ma oga oohintaada, dadku ma oga murugadaada, dadku ma oga xanuunkaaga, balse waxay dhammaantood wada og yihiin goortii aad hal qalad samayso. Laakiin Alle ayaa subxaanahu wa tacaalaa ilin kasta oo indhahaaga ka timaada wuxuuna kaa cafiyaa qalad kasta oo aad samaysay ee adigu ha rajo dhigin. Dadku waxay inta badan hilmaamaan in ay kuu mahad celiyaan markaad wanaag u samayso, laakiin marnaba ma hilmaamaan in ay ku eedeeyaan haddii aad hal qalad samayso. Dadku waxay yidhaahdaan ma garanaysid faa'iidada iyo qiimaha uu leeyahay waxa aad haysatid ilaa aad weydo, laakiin xaqiiqadu waxa ay tahay waad garanaysaa ee marka aad haysatid ayaad u aragtay in ay shaygan aanad weligaa waayahayn. Dareenka jacayl haddii qofku uu sheegi kari waayo, indhaha ayuu ka soo baxaa oo laga gartaa.